بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan ka hadlo kooxdan burcadka ah ee qowlaysatada ah ee Puntland afduubka Puntland ay u afduuban tahay oo sharcigii islaam iyo kii qawaaniin ee dastuur ummadda ay lahayd kulli ku xadgudbay waxay yihiin kooxdaas waa kooxda Aranjan iyo intay waa maamulaaneen waxa jirta saad ogtihiinba in odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiin caan ah oo ceebka saliim ah oo dhaqankii ummadda ah oo mas'uuliyiintii ummaddu lahayd ah in mardaxdaas la iska xirxirtay xabsi la iska geeyay wax sharciya aan lagu xirin wax hadii la ku reeyahay dambi oo ay cid ka galeen aysan jirin ilaa wanaag ma aha waxay ka hadleen masiir ummadeed waxay ka hadleen dalkii hantidii maguurtada lagu xadgudbay waxay ka hadleen xadgudubka dawladda ay imaaraad iyo dawladaha kale oo shisheeye oo dalkan u haysta dal aan dad lahayn oo u soo adeegsaday kooxda Aranjan iyo kuwa ay xukumaaneen oo aan amarka iyo nahyiga lahayn waxay sameeyeen odayaashii markii la iska xirtay bil ay iska xiraayeen in maanta ay waxad ahayd maxkamad in la keeno in dambi in hadii la ku rooyahay wax sharciya horena aan loogu xirin waxay maantana maxkamadda inta la keenay waxaan quraan waxa hadii la ku rooyahay xukun baadil ah oo falsi ah oo garow laga soo sameeyay in lagu xukumay waxaan quraan waxa jirta in hadii la ku rooyahay lacag madax furasho Allah waxaan quraan lagu xukuntay in kuwa xabsi hadii la ku rooyahay 2 sano ah dib loogu dhigay la yiraahdo lagu xukumo kuwana hadii la ku rooyahay muddo 6 bilood ah waxana hadii la ku lacag baan idinka qaadaynaa iibsada waxana hadii la ku jeelka iskaga jira waxaan quraan markii ummadda u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ummadda Puntland ummadda gobolka Bari in xadgudubka afoosha xun ee aan xalaasha ahayn ee dulmiga ah ee hadii la ku rooyahay xadgudubka aan geedna loogu soo gabanaa inaad ka dagaalantaaniin oo ka hadashaaniin oo aad waxaan quraan inaan u fiirsan sababtoo ku ah waxa lagu xadgudbayaa waa dhaqankii waa odayaashii waa waxgaradkii waa siyaasiyiintii ceebta ka saliimahayd ee shalay ka hadlayay masiirka ummadda hadii ninkii ka hadla masiirka ummadda la iska soo qabsado xabsiga la iska tuuro hadhowdina hadii ilaahay ku ray maxkamad inta la keeno dambiye been lagu eedayo oo xabsi lagu cesho waxaan quraan markaas cadaalad hadii la waayo wadanka cadaalad darra ka dhacaysa xabad baana imanayso wala isdilaya dilkuna waxaan quraan wuu soconayaa waxaan quraan hadii la ku rayo ummaddu way kacaysaa waxa quraan baadilkuna waa soo afjarmaya laakiin ummadda waxaan u sheegaynaa marka ummadda Soomaaliyeed ummadda makataliska ah ummadda waxaan quraan wanaaga iyo hadii la ku rayo horumarka ummadda jecel inay arinta u fiirsan haday u fiirsadaan dulmiga u fiirsadaan dulmigaas guryahooda iyo naftooda ku imanaya sababtoo ku ah hadii aad dab baxaya sugto adigu ku soo gaaraya dhibaatada ka taagan maanta gobolka Bari ee xadgudubka ah ee Aranjan iyo hadii la ku rayo kuwa waxaan quraan wax magaratada ah oo ay maamulanayaan ay ku sameeyaan dhaqanka ummadda wax garadka ummadda siyaasiyiinta ummadda aqoonyahanka ummadda lagu sameeyo waxaan quraan dadka u fiirsanaya oo u dulqaadan u jeeda idinka idin soo gaaraysa hadeynaan maanta ka dhiidhino ka dagaalamin oo ayna wax ka qaban waxaan kaloo idin sheegayaa ummadda bini aadanka ahi waxaan quraan xaqa iyo wixii cadaalad ah inay garab isku siiso way laakiin baadilka iyo xumaanta iyo dulmiga iyo xadgudubka in la isku fiirsado ma aha xooluhu iyo xayawaanka waxaan quraan qofkii waxaan quraan neefka hadii xabada laga haro inta kale ay fiirsataayo ku daawataayo waxaan quraan ilaahay koreeya ay ka deegaan oo ay ka fiicishamin arinta maanta aad u dul qaadanaysaan xitaa maalinta yawmal qiyaamah wala kula xisaabtamaya dadka mas'uuliyiinta ah culimada waxgaradka ganacsatada dhalinyarada ku nool gobolka Bari dhibaatada maanta waxa dhibta ay wadaaneen Aranjan iyo maamulkooda waxay wadaaneen hadaan u dul qaadataaneen wallahi maalinta yawmal qiyaamah wala kula xisaabtamaya waxaasna wax loo dul qaadan karo ma aha annaguna waa ka hadlaynaa hadii alla yiri arinta iyaduna hadal kuma ekaan doonto waxaanu ka sameyn doonaa ficil hadii ilaahay idmo xilligii la gaxay waxaan quraan waqti dhow insha Allah biidmillah kareem laakiin waxaan ku baraarujinaynaa shacabka Soomaaliyeed shacabka ummadda
Puntland shacabka gobolka bari waxaan quraan ummadda kaleeto iyo gobolada kaleeto sida dhaqankooda looma galo sida waxgaradkooda looma galo sida aqoon-yahankooda looma galo idinka hadii aad dhaqankii iyo waxgaradkiini lagu jiijiidayo magaalada Boosaaso oo hadba meel darbi la iska geeyo maxkamad la iska geeyo ciyaal yar yar oo shacab wax ka aqoon war kuwa garow warqada ka soo qoray iyo kuwa Boosaaso maxkamadda u joogahay kuwa waxaan quraan mid sharci wax ka yaqaan ma jiro sharci haday wax ka yaqaaneen waxa ay isku hadleen kuma hadleen waana waxaan quraan garsoor aan xalaal ahayn oo xad gudbay oo sharci ka talaabay oo ku tuntay xitaa sharci mid gaalo iyo mid muslimiin toona lagu maxkumin waxaan qofku sideedaba haduusan aakhiro ku xisaabtamayn aakhiro lagu xisaabtamaya wuxuu ka dhigan yahay nim aan diin haysan oo cawaan oo ka dhigay arinta hadii ay sharci garanayaan mid hadii ilaahay ku yahay masiixi iyo mid muslim hadii mid garanayaan maanta waxa ay dhaqanka kula waxaan ay dhaqanka ku xakumeen oo mar ay dhacdeen dhibaatada noocaas marka waxaan kala dardaarmayaa oo aan hadda codkan u duubayaa waa ummadda shacabka Soomaaliyeed ee gobolka bari jooga ee wax garad kale ee xumaantaas arka inay ka dhiidiyaan kana dagaalamaaneen arintaasna Aranjan haday u dulqaantaaneen waxaan u maleynayaa waxa ay sugayaan waa dhibaato ka weyn iyo inqilaab iyo burbur lagu kala tago gobolka bari waana dhacaysa lagu kala tago sababtoo ku ah ummadda markii la rogayo oo jil waxaan ku ummadda la baabiinayo cadaalad kuwa mas'uulka laga dhigto cadaalad darrada sameeya cadaalad darro markii la sameeyana burbur baa ka dameeya asalkeedu waa burbur Soomaaliya waxa dhibta u kala 30 sano waxay ka bilaabatay cadaalad darradii wali qayb ka mid ah Soomaaliya ka jirta waxa waliba hadda waxay ku harsan tahay oo ay harsataa hadda ay degantahay cadaalad darrada gobolka bari marka waxaan u sheegayaa oo aan ku dardaarmay hadalkay ku soo afjarayaa waxa hadii aad dad bini aadan tihiin oo muslim tihiin oo wax garanaysaaneen ummadda shacabka ku nool gobolka bariyow waxa sida loo galaya waa dhaqankeena iyo waxgaradkeena intaasan hadalka ku soo gabagabeynaya ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hamidowdo wixii xunna Ilaahay ummadda ka qabto cadaalad darradana Ilaahay ha suuliyo annaguna hadii Ilaahay idmo waxaanu hadii Ilaahay ku gaari doonaa insha Allah cadaaladii waxaan rabaa inaan ku daro amni darrada dilka joogtada ah oo aan loo kala aabayeelin dhaqanka iyo hadii la saraakiisha iyo siyaasiyiinta iyo hadii Ilaahay ku raayahay isimada aan loo kala aabayeelin inay ka dameeyaan maamulada tan Puntland oo Aranjan hadda ay maamusho horena hadii markasta waxaan quraan Aranjan buu ahaa maamul Aranjan hagayso buu ahaa kana waxa maamulayahiba oo hadda wataa hoggaan u ahay waa Aranjan dhibaatada ka jirta gobolka bari ha noqoto amni darro ha noqoto xadgudub dhaqan lagu xadgudbo ha noqoto hadii Ilaahay ku rooyahay musuqmaasuq ha noqoto hadii Ilaahay ku rooyahay xadgudub kaleeto oo hantidii maguurtada ahayd oo la iska iibsado noqoto ay dhibaato kasta oo ka taagan gobolka bari waxa maamulaya oo ka dameeyahay waa Aranjan iyo inta ay waxa iyagu xukumaaneen oo ay maamulaaneen oo ay iyagu muraayada inda u yihiin miyaysan marka ummadda ku khaldin الشباب iyo Daesh baa dadka leynaya oo hadii la yiraahdo iyaga ka leeyahay war al-shabaab iyo Daesh ma dadka gobolka bari ka soo jeeda bay baa godob ka qaba oo loo direeyo la yiri laaya ma aha hadaba marka waxa soo dhan waxa ka dambeeya oo la rabaahay siyaasad weeye waxa la rabaa dadka bari joogaahay inaysan wax garad yeelan inay saraakiil yeelan inaysan dhaqan yeelan inaysan wax la yeelan oo ay hadii Ilaahay ku Aranjan iyagu ay u taliyaan dalka iyagaana ka leynaya madaxda nin kasta oo wax garanayo meel istaaga ka hadlana waxa idin daliil idinku wax ku hadda xirxiran oo shalay cadaalada ka hadlay oo inta jeelkii dadka wax ma dharka la geeyay inta la geeyay goorti bil lagu soo hayay maanta waxa quraan cadaalad darro sharci cadaalad waxa quraan xukun cadaalad darro salka ku haya lagu xukumay taasi daliil idinku ah inaan la rabin in xitaa iska daabashadii ciidi hadasho oo cid magac yeelato oo cid xitaa siyaasadooda ka hor imanaysa inay kaga siyaaneen waa heshiis lagu galay garoowe lagu ansixiyo ummadda barina loogu talagalay in lagu soo afjaro waxaan idin sheegayaa marka haddayna kuwa hadda marka maanta xilli wax garashadu ku jirtaahi waxa idin imanaysa bari in idinka sida laydin leynayo oo sida laydin xirayo oo sidaas laydin waxaan ku raadii la ku yahay laydin dulmayayo haddaad marka dul qaadataan dhibaatada dilka ha noqoto xadgudub ha noqoto musuqmaasuq ha noqoto dadka lagu sameeyaa wadalka gobolka bari dadka gobolka bari marka bini aadan ma aha maya dad bini aadan oo wax garanaya oo islaam ah oo aqli leh oo hadii Ilaahay ku rooyahay xitaa dirili kara oo dagaalami kara ma aha maya
war waxaan ku markaa waxaan fariin u dirayaa fariintan waxaan hadalkay ku soo gabagabeynaya fariin waxaan idin leeyahay ummaddu siday u dhaqato u dhaqma reer bariyo haddaynaan u dhaqmin waxaan quraan inta waxaan quraan goortii inta makaska oo gunta abaan baa leedin ka reebaya oo aan waxba awoodsan karin inta wax garadka ah baa leedin ka leynaya wax idin ka harayaan ma jiraan inta ka bacdina waxa idin xigta in kulligiin jeel leedin ku goro waxaan quraan hadii ilaahay ku ray gabdhihiina waxaan quraan hadii ilaahay ku la iska taxaabto dhibaati eednaan ku soo waaqsan leedin ku sameeyo waana heshiis lagu gaaray garowga lagu gaaray way heshiiskaas waa heshiis lagu gaaray maamulka 22 jirsaday ee qoysku maamulayo heshiis ay ku gaareen gobolka bari inaysan hadlin mudug inaysan hadlin hadda meesha la yiraahdo sanaag inaysan hadlin kulli inaysan hadlin baa lagu talagalay waxa la leenayaa waa sanaag iyo bari يعني هذا أوران كليه هذا الكليه مركور واحد كل جرت بري كليه لكن سناق يبري لبضو واحد قرآن وهشيس بلوي هاي إنان وحكة الله ولا بحني يقول له وما إلهي قرنا يحتى إنيسان كصوبحن سيداسنا واحد قرآن هدي الله وضو دحال كيدو وحنا نقول يا بطلان إنيسان جرين وبطلان دم لو حسابته من وبلان إلهي أنا لو حسابته من ولا لو ما حسابته من دور خير بدن بعدين رجعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته